ugu yaraan 10 qof oo Soomaali ah oo ku noolaa xerada qaxoontiga dalka Uganda ayaa gaajo iyo cudurka safamarka ee COVID-19 ugu geeriyooday dalkaasi labadii toddobaad ee u dambeeyay. Waxa la sheegay sababta ay u geeriyoodeen in ay tahay caawinaad la'aan maadaama dalka Uganda uu ka jiro xayiraad ka dhan ah fayraska COVID-19. Halis Mohamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee Uganda oo la hadlay wakaalada Anadolu Agency ayaa sheegay in qaar ka mid ah qaxoontiga ay u dhinteen gaajo halka kuwa kalena ay u dhinteen fayraskaasi. Ma gaari karno kuwa u baahan sababo la xiriira xayiraadda COVID-19-ka. Qaxoontiga waxay ku baahsan yihiin xaafadaha caasimadda si ay caawimaad u helaan, ayuu yidhi Halis Mohamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee dalka Uganda. Wuxuu sheegay inay jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed oo maalqabeeno ah oo ganacsi ku leh magaalada Kampala laakiin aysan gaadhi karin dadka u nugul xayiraadda jira awgeed. 6 Juun madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku dhawaaqay xayiraad dalkoo idil lagu soo riday sababo la xiriira caabuqa sii kordhaya ee cudurku ku hayo dalkaasi. Sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka Uganda, tirada guud ee kiisaska COVID-19 ee dalka ayaa gaadhay 87,277 qof, iyada oo 2,104 qof ay u dhinteen halka 61,304 qof ay ka soo kabteen. Waa idaacadda Dhegmaal, magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.